dhacdo cajiib oo la yaab leh Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dhacdooyinka ina maskaxdu badanka aqbalaynin ma aaminaysaa inay maanta ka dhacday Soomaaliya dhacdo ah in nin uu muddo 6 bilood qof dumar iska dhigay oo muuqaalka qofkan haddii aan idin tuso ma aaminaysid inuu rag yahay ilaa tan iyo inta dharka laga saarayo ee ragnimadiisa toos loo arkay أنا مو هذا بيجورسني مساعدة يجورسني مركب قلبي أنتو ياليا لكن قلبي ما هو هيا والله dabcan inkastoo war la hubo aynan ahayn dadka qaar waxay leeyihiin dad bushkaansaday qaar waxay leeyihiin rag lacag ka cunay kulley waxaa jirtay hadda koor social media muuqaallo uu kusoo gudbin jiray soo marka qaar dadka caawimaad weydiisanay waa qof dumar iska dhigaya codkiisa haddaad eegto waa qof dumar muuqaalkiisa haddaad eegto waa qof dumar jirkiisa xataa haddaad eegto dee jirin rag adag maaha hay-adaha ammaanka ogaaday gacan baa lagu soo dhigay dharkii baa xoog lagaga saaray waxaan la arkeen rag yahay kulley muddooyinka u dambeysay Soomaaliya dhacdooyinkan ma ahan tii labaad iyo tii saddexaad hore laakiin midda la yaab kala aniga aan ilaa hadda aamin ilaahay baa waxay tahay shakhsigan codkiisa jirka waa la bedeli karaa irbada la isticmaalka laakiin in codka la bedelo waxaan malaynayaa teknoolajiyadaas Afrika khaasatan Soomaaliya weli ma gaarin bal codkan la dhageyso عالية قلبي قاس أنتو عالية قلبي مر والبو عصب الله مرني بوقتي انتو ياليا قلبي قاس نسيب درا قف كان هيسته نسيب ملا قف كان دائما قشيت وانيو والله وانيو codkan ma aaminsan tahay inuu qof raga yahay nin raga inuu yahay just like anigu hadda codka isku dayana codka bedelo hello abdiyo in lacag ay soo dir ma noqonayso macnaha just like haddaan xataa muuqaalkii bedelo garka iska xiro si walba shakhsi uu isu bedelo codka waa la fahmaya waxa la dhahaa qaliimaad lagu sameeyo laakiin heerka banaanka dhacdooyinka noocan oo kale ah laga digtoonaado inta u dambaysan muuqaalkan kusoo gabagabeynaya waxay tahay waxa shakhsiga lagula kacay maaha wax muxuu ahaayay waxay ahayd waxyaabo xuquuqda aadanaha ka hor imaanaya in qof bini'aadana la soo qabto marka laga dhigo media hadana soo istaajiyo waa criminal way shakhsiga tallaabo laga qaado bulshada laga wacyi geliyo muxuu ahaayay la xiro tallaabo laga qaado waa sax oo sharciga iyo diinta way ogasha laakiin qofkii in shakhsiyadiisii lagu xadgudbo oo inta media la soo istaajiyo hadana marka laga saaro media la wareejiyo dee walaalka ceebtiisa wareejisa waxba ka faa'iideyso waxa laga yaabaa biro qofkan inuu toobad keeno inuu Ilaahay soo laabto xuquuqul insaankuna ma ogola dabcan dhaqankeena wanaagsan ee Soomaalida iyo diintana ma ogola qofna in la bahdilo si doon haba ahaatee. Assalaamu calaykum.